عاقل جامع موسى ayaa maanta magaalada Hargeysa lagu caleemo sare kadib markii uu walaalkii uu ka dhintay booskaasi bishii hore xaflad loo sameeyay caleemo saarka caaqilka cusub ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda cuqaal salaadiin madax dhaqameed iyo dadweyne kale xubnihii ka hadlay caleemo saarka caaqilka cusub ayaa sheegay in ay la shaqeyn doonaan waxaana Ilaahay uga baryeen inuu xilkaasi ku asturo iyagoo ku sifeeyay inuu yahay nin hanan kara xilkaasi Ilaahay ha kugu garab galo Ilaahay raxmadda Ilaahay nasiiyayna waan ku bahadaqayna Ilaahay hayloo kordhiyo Ilaahay Soomaaliland itiraaf wanaagsan iyo sharaf Allah siiyo waxaanu leenahay dokole hawleeyo hayee marka hore bahayay ayuu bay tan ugu darmatay aad iyo aad baanu u soo dhaweynaa u salaameynaa waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu xilka loo igmaday ee la saaray Ilaahay ku asturo lagu garab galo jaamac sidii halkan ba laga sheegay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo sidii halkan laga sheegay nin xilka ku haboon oo waxa weeye istidaacadeedii iyo quwadeedii iyo aqligeedii la weeyay amaana leh oo waxa weeye aan isleenahay insha Allah daacad buu noqon doonaa halka ay meel ka fogba u gaarsiin doonaa caaqilka cusub waxa leeyahay hambaliyo Ilaahay xilka ku gargaar sida halkan ka mariyeen waan dulle waan diinle dushaas iska ogow haddaanad marmarka seebta ku qaadin ay kula dabageel u dilbulee gabagabadina caaqilka cusub ee la caleemo sare jaamac muuse oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay dadkii xafladda kala soo qayb galay dadka xafladayda ka soo qayb galay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ka bacdi waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay xilka kii igu aftura Ilaahay hayga yeelo ducada lay ducaynayna Ilaahay hay aqbalo